قال موسى وهي موسى وقلدي موسى وقلدي إنه من قلدنا ما يسقط من الطليان تلا لقالي تالو وحنا وشيء لابد حسبي معارض يديان كلا قبل تاريخ وديان لا قبل على إيركابو سنة إلا يهرجيس قام بيسوق صار عليهم دورش أنت مدحوينه دوك يكدي مايسو تيبان كعلين هذا موسو وحتكون شيء كيستا وشيء كيستا قالها لا بس على إيكودي أبتسلا يبلغ بكوديني عد باتكم بحيسا كرسي جن قفك أقوى إلهي مكانية لكن كسر مسكح هذا وحن دونه أما موسى بيحيها أيها كسر سومالان حاشا لله كسر ميسو أنت إلا ما بك هاينا إن الله وضع حسبي إن هو كل سيمانة وقت وكاد عاي إن أنا ولا تلعب قعدنا تعصوا كلا وحسوا لوينيا راجع أبتقاني قراد شعب ينسو نوينيا حسن الشيخ موقف يصير تاعي أنت سيودني ما أيوة قاعد يدرسوا مالنا إيو يقول لي هذا الناس عانوا يصير تاعي وكأولي وعقل علي وحلينا هاي هم بليو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ما له سبحانه وتعالى إلهي ما له إلهي كريم ما له سبحانه وتعالى والله عليه مركب هو سبحانه علينا إلهي ما له إلهي أنا بتقولي يوسف علي الدلكيني من هاك سنة وحنا آدي أبو ما نقيا تذكي قرب تشوقها سلمان طو حسين يقول هذا شو مالنا سيدتون كيمي دردانك maalintii sameeyay yani maanta iyal inooyin burburmay si xoog leh loo dabaal dago ay ka soo jawaabteen waa mahadsantiin mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan hambaleynayaa ciidamadeena soo majeetiyaasha ah xaq u dirka waan hambaleynayaa ilaahay guushayna siiyo waalidka gardan yahay ilaahay guushayna siiyo waxaan ka codsanayaa dawladda inay dar yeesho dadkii ku dhaawacmay dagaalkaas isla markaasna agoomihii ku aagoomayna in laga warhayo oo la dayactiraan dawladda aan ka codsanaya waa maanta waxaan jecelaynaa ka hadlo dalkeenu maanta xaaladiisu halkuu maray waan arkaysaa waxa weeye nasiibo aan inagu keenay maamulka maanta dawladda uu ka madaxaha musabix ayaa maanta dalka halkaa keentay dadkii waxaa galay niyad jab waxaa galay warwar waxaa galay shaki hadda nabadii baa khatar ku jirta laasacad marka laga tago intii kale Somaliland oo kala shakisan ayaa ku jirta waxaan idin sheegaya horta doorasho ururo dhici mayso raga doorasho ururiyo reerkii hadduu ku codeeyo ya kale ku codeynaya reerba ina mid buu furtay وحسوق تنقلنا معها شرعنا ماله أدوكنا كما دعوا وحنا وشيء لابد حسبي معارض يديان كلا قبل تاريخ وديان لا قبل على إيركابو سنة إلا يهرجيس قام بيسوق صار عليهم دورش أنت مدحوينه دوك يكدي مايسو تيبان كعلين هذا موسو وحتكون شيء كيستا وشيء كيستا قالها لا بس على إيكودي أبتسلا يبلغ بكوديني كومو كود إنك والشعب كومو كود سليمان قال متشرو باترين وحي أينو أنكو يشينا ستيك هولدرز كينا أيها شرعيين شرعيين واتوغي تقود مثل بدين أن سكود لي مركا أبارتو جرتي ديدي سي إن دسيران يلو كرديو ستساقال كبلون ودي ديدي وحي أنا كل شيء لا بلا سيداي نوين بعتها المدح من لما إيش تورتي سكدا وحن شرين أروش كي صدقك وحن لا هذا والمركز حكوا لها لا سيدتك محمد سياب علموها كي ملا تورتوري دونه حاج حروري وهي قبيلها حقيقة سوحي هرتني كلا هاد دبلا حيو ما كعيو إن يركب وتد بربورتي سومالي ما أنت نهار سومالي دبل الله حياه هدان دحين كهشينين
oona inagu wax ku heshiin oon dadku wax ku heshiinin wax ad keligaa wadi kartaa ma jirta dalku waa khatar gelinaysa taa ku absha dalkana cod baad ku heshay waanu ku taanidaynay cod baad ku baxaysaa kursigan qofkii u qoray ilaahay baa keenaya laakiin ka saar maskaxdaada waxaan doono ama Muuse Biixi ayaa ka soconaysa Soomaaliland xaasha lillaah ka socon mayso inta ilaa baan kaga haynaa inaan labada xusbi inaan waa kula siimana waqtigu ka dhacay inaan anaguna talaabo qaadna taas oo kala laakiin dadkaan u turina adowgaanu ka celinaa meelayaal adow isku farx ishaysashadaynu waxay noqonaysaa jiititaanka iyo halista qaranka gelinaysa noqonaysaa isku keen kaala wada hadal leh bal waxaad maslaxaysa leedahay sharci baan hayaa leedahay sharci baan hayaa ilaalinaya bal anaga natus sharci haysi sharci ku fasaxaya inaad iska joogtid tiyo aan lagu kordhin oo sharci ku joogtid sharci ku fasaxaya inaad ururaan bala sharciya oo adduunka inaad samaysid oo labada doonti soo saarto tahay oo la isdilo maana dhacay bal noo sheeg waxaan taasna waa taas waxaan jeclahay inuu sheego deegaanka reer Laascaanood habeenkan waan ka seexan kara waaya markaan xasuusto waxa maanta ka taagan Laascaanood iyo markii uu dambeysay seexad maanta waxaan arkay kufsiga halku mariyo khamrigu halku mariyo dilka halku mariyo dadkii qaxay si ku noolyihiin oo raaciya waxaan leeyahay waxaan suurta geliyana aku hay ma gelisaane Soomaaliland la kala jarjari maayo oo Soomaaliya sharciga intisaa sameeyay oo lixdii gobol baa lagu noqonaya lixdii gobol ee siyaad bare oo inflation ku sameeyay oo degmooyinkii beebeenta lagu noqonaya oo waa la istirinaya say anagu aan yeelay in lixdii degmo ee Soomaaliland aan ku celin lix gobol ka noqonay idinkuna lix gobol baa haydaan oo lix degmo ahayn lixdii gobol ay ku noqonaysa nabadda qaatane oo dadkina ka naxa waxba atagina Muqdisho iyo Jabuuti dilisay iyo inay dilmaysa idinka caruurtii dilay tala xumaantiina dilisay galad jaamaca Ismaaciil saaxiib waxaan ku leeyahay dadka badbaadi maanta kale waxa lagu kala baxaa raganimadu waa qofka nabadda qaata wanaag qabta waxaan soo dhaweynayaa raaga Cabdiqani galad jaamac soo dhaweynayaa waxaan shacabka Soomaaliyeed waa garaadkii aabihii waa ogtihiin waa ninkii halganka nala galay beeshooda waa ogtihiin waana soo dhaweeya waa too late mar hore ahayd in garaad in Cabdiqani raage mar hore iyo dadkiisa wada soo dhaweeyahay waxaan balyanayaa xasan sheekh mowqifkiisa taagay anta si odaynimo ah ayuu qadiyada Soomaaliland iyo gudaheeda Laascaanood iska taagay oo ka odayeeyay oo caqli celiyay waxaan leenahay hambaliyo hindisi bayda ku qaadateen wada tashana wana soo dhaweynaa sharcigiinu ma muuqda muuheen inuu saddex sharci adduunka ka socda system midna muuheen president system ma ahayn parliamentary system ma ahayn oo iska biyaysan yiriis wasaari hay beedna ma ahayn ka isku dhex jira midna ma ahayn inay wixina qayaxdaan oo saan u qayaxdaan oo president system qaadataan parliamentary system ku wadamada soo koriya ma waaro dawladdu ma waarto kuba wala rida wali alka Pakistan ka taagan baarlamaanka ka adoon sameeyo president system sameeysa istiriya dadka badan ee xuquuqdooda ku tumanaysan xaqooda siiya ya qof kasta intuu laama kala tiriyo ee shacabka lagu ridayo taas cadaalad laakiin habham iyo been lagu noolaa 30 sano ee Soomaaliya isku daray ee keenay burburka ee xasuuqa keenay kala xalan leeyahay taas waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland hala ducayso madaxweynaha waxaan leenahay hadduu talada qaadan waayo waa laga tashanaya waxaan leeyahay shacabka Soomaaliland waxaad gaartay Soomaaliland qof qura qaldan gaariga muslim waxay muusuu qalday inuu qaldan ma iska qameeno talayaan tala la gaari talo
waxaan kala dadka ugu